ayaxa ayaa muddooyinkii u dambeeyey farabaas ku hayay deegaano badan oo Soomaalidu degto saameyn weynna waxa uu ku yeeshay inuu nabad guuriyo beeraha iyo baadka dadka ku nool deegaanada miyiga ayaa dagaal la galay ayaxa si ay u kiciyaan dhulka ku habsaday kuwanina waa qaar ka mid ah dadkaasi oo rasaas nool adeegsanaya inta badan wadamo kamida dunida ayaa laga isticmaalaa cunista ayaxa halkani waa goob kamida suuqyada waaweyn ee magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxaana lagu iibinayaa ayaxa taas oo ay dadku si xawli ah u iibsanayaan halkani aan ku suganahay waa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waana goobaha uu faraha baas ku hayay ayaxu taa bedelkeeda waxaan la kulmay dad si joogto ah oo isticmaalaya cunista ayaxa waxaan ka waraystay sida ay u arkaan cunistiisa maadaama aan hore looga baran Soomaalida cunista ayaxa waxaan u arkaa run ahaan Soomaalidu horta markii hore fikir qaldan ayay ka qabtay oo waxyeeladiisa uun bay dareemi jireen hadda laakiin waxa la ogaaday baalkii inuu manaafacaad fara badan leeyahay saddexda waqti inaad cuni karto waxa weeyaan xanuuno badan oo dhiig karka iyo macaanku ka mid yahay ayuu ka daweeyay way waqti inta leeg badan imika hawiyad cunitaankiisa wadii imika muddo waxaan waday 6 bilood meelahaas ah waxa weeyaan maca energy-gii uu soo noqday 15 jir baad u noqday ninkii weynaa marka waxyaabaha aad dareentay isbedelada aad dareentay intaad ayaxa cunaysid maxaa kamid ah waxa kamida markii hore tibcaan fara badan daal waxyaabo noocaas ah ayaan dareemi jiray imika fudayd baan dareem shantaas waxnaan boodaya shaqooyinkayga kaleersan wuxuu qabsaday milmiis imika hilibkan aynu qarano iyo kalluunka oo kale inuu la mid yahay ama ka wanaagsan yahayba waxa weeyaan markaa dadku inay ogaadaan inuu manaafacaad badan leeyahay oo hoos u eegaan ayaan oran lahaa oo ay isticmaalaan ayaxa waxa weeye waa cayayaan waxa weeye baaleeya oo waxa weeye duulaya marka aad soo qabanayso hawl inta leeg ba ka gasha waxa weeyaan hawshiisu ma badna asaahate kulli wax ka shaqo kasto la qabanaya hawl bay leedahay marka run ahaan markuu ogaaday imika in isagii laftiisii la isticmaalayo hawl badan baa imika naga gaadhay ayaamihii dambe oo wuxuu ogaaday inaanu deysay cunaba bulshada fariinta aad u diraysaa maxay tahay fariinta aan u dirayaa waxay tahay burca run ahaan may aqoon iyo Somaliland toona cunistiisa markii hore hasa ahaatee waa kuwaasoo waan cunaynaa way arkayaan waxaan oran lahaa maca hoteelada lagu soo diro dalabka cuntooyinka caadiga ah ee la iibinayo ha lagu soo diro waayo manaafacaad badan iyo dawooyin badan buu leeyahay marka dadku ay u soo jeestaan baan leeyahay bal ha tijaabiyaan nala ogaadeen waxaan leeyahay cunista ayaxa la bilaabo intii hore cuntayna cunto cidii uu waarsan yahayna ha bilowdo daawooyinkiisa badan yaan wax dhib yeelay loo arkin deeka argos ahaan qariyaan cunana daawaha laga baadho niyada xulwa niyada loo sidaayo hal cuno waxyaan xalaala waxyaan la cuni karo oo xalaal oo xuleena la mid ah waanu qabqabanay baa lagu muuriyay wala qabqabtay hore loo isticmaali jiray waa tan la sheeray horteedu yaalay mar waana dee khayraadka dalku ka mid yahay waa cunto xalaal ah oo biraysan yahay sida kalluunkeena oo kale marka dadka waxaan u sheegaynaa dhibaatadiisa nimanka markaanu qabqabanay maanta gelikii dambe wuu kacay oo haygii baalkiiba wuxuu tagay sabca samawaad ku tagay markuu ogaaday la qabqabsanayo la cunayaba qaarna bahala yaryar iyo cayayaanka wii loogu talagay bisada weerareen annagina aanu qabqabsanay shiilay warkiinu dab galay malaa dee dhacaykiisa u soo waray wuu kacay oo baalkiiba wuxuu tagay hawada labaad buu galay iminka xabadiba duulaysa wadanka marka dadka waxaan u sheegaynaa xitaa si dhibaatadiisa ay idinka yaraato ama idinka fogaado ama khayraadkiisa iyo nafaqaadkiisa iyo dawooyinkan la sheegaya awlo kulantaan qabqabsadoo reer walba inta agtiisa joogta ama duulaysa ha ku kiciyo ciyaalkii dumarku mid iyo bac lagu qabsado magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay noqonaysaa magaaladii labaad ee Soomaali degto oo lagu soo bandhigo cunista ayaxa iyadoo hore looga arkay magaalada Cadaado ee xarunta gobolka Galgaduud ee wadanka Soomaaliya والله اسكو هايستا بالك كبكيسي وديسينا waxa weeyaan mid daawo weey kii hore uu ka dharay meedo waxaan ku sheegay subarkiisa ka dar وعبد السلام أحمد عود عبد الشرمني وركز سهن TV Burco